aniga waa la aqoonsaday inaan suldaan iris Soomaali ah dawladda Somaliland way aqoonsatay halkee lagu aqoonsaday way aqoonsatay markaan ku leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha la fariistay wana muuse bixina lacag intuu saan kugu soo qabto ku siimay warqad buu ku qorayaa wasaaradda maraysaa madaxda Soomaaliya ninka u tagto saas intuu ku soo qabto amirida oo Sacuudiga ku siina waxyaalaha wadankeena corruption ka keenay maamul goboleedka oo Puntland oo mar walba dawladda dhexe isku taagto haddii ay maartay gooni isku taagto ama ay ka hortimaado dawladda go'aanan ka qaadanayna oo maartay mandate aan u haysanaa inaan geli karno Puntland maartay waxyaalahaas oo dhan ay marka fududeynaysaa adduunkana iyo Soomaaliya caalamka waa ogyahay kan karada Soomaaliya inay tahay Puntland nimanka la yiraahdo Cismaan Maxamuud khaasatan Dani cidii qabiil ku soo weerarto dhagaan ku dhufanayna anaga xasan xataa weydiimina cid aan uga aabiyeelina mar qabiilku isku taaga dawladda shan gacmood iyo cala lagu qabanaya kulan wacan daawadayaal waxaan hay Samiir Cabdirasaaq Umar kuna soo dhawaada barnaamijka diiradda wareysiyeed ka daawataan muqalbaahiya SBTV maanta barnaamijka waxaa marti noogu ah Suldaan Maxamed Suldaan Cigalle Suldaan Hooley oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka inagoo intuu barnaamijka soconayo wax badan ka weydiin doona barnaamijka dhowrkii cishe la soo dhaafay oo baraha bulshada qabsaday ee Irir Soomaale iyo wafdigii uu hogaaminayay ee gaaray deegaanada maamulka Somaliland waxyaabihii u qabsoomay iyo dhacdooyin kale oo muhiim ah oo maalmahan baraha bulshada ka taagan oo arintaasi salka ku haya Suldaan Hooley ku soo dhawow muqalbaahiya SBTV gaar ahaan barnaamijka diiradda wareysiyada runtii aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa wariyaasha kaamiramanada iyo shaqaalaha madaxda maamulka SBTV oo ah television ama warbaahin madax banaan oo ummadda Soomaaliya u shaqeyso runtiina waqtiga ayaan idin xusi doona marka aad iyo aad baad u mahadsantiin wata Suldaan Hooley dhowrkii cishe la soo dhaafay waxaa jiray safar aad ku maqneedeen oo aad ku joogteen deegaanada maamulka Somaliland bal waxaad inooga warantaa safarkii aad ku tagteen deegaanada Somaliland waxa uu daarnaa iyo natiijada aad kala soo laabateen runtii waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan garoonka magaalada Muqdisho ayaan ka dulna anagoo ogolaansho haysana dawladda Somaliland waxaana ahay suldaankii ugu horeeyay ee dawladda Somaliland si official u marti qaaday runtiina garoonka international cigaal ayaa hal saac kadib iyo baraka degnay aad baan lagu soo dhaweeyay hotelka Mansoor runtii Soomaaliya waxay tiraahdaa caliiliya markay heshiiso ayaa xolo biyo cabaan Somalilandna waa niman si kale iyo laba 60kii noogu darsaday 26kii June 1960kii markay calanka qaateen dhibaato badan waa soo gaartay marka maadaama aan fursad u helay safarkeyga wuxuu darnaa sidii Somaliland loo garab istaagi lahaa wixii wanaaga sharaf ah karaamo ah dawladnimadeeda ah dadka ka soo horjeedana loola heshiilaha waana midda maanta u furtay dariiqaas hadda aniga aan furay oo Ilaahay ugu guuleeyay maantana isimadii qaldamay ee garowa ka degay dib baa loo saxay Sheekh Shariif ha saxo maanta waxay joogaan Somaliland taasna waa guul weyn oo aniga Suldaan Cigalle Hooley u soo hoyatay Hooley yu Suldaan u yahay ma Soomaaliya Suldaan u yahay ma beeshu ka soo jeedo Suldaan u yahay yu Suldaan u yahay horta runtii aniga Maxamed Cigalle Hooley la yiraahdaa Suldaan Maxamed Cigalle Hooley aabahay waa Cigalle Hooley nin la yaqaan oo Soomaali qiimo iyo sharaf kale oo gobolka Baay iyo gobolka Shabeellaha Hoose xuduudiisa magaalo ka dhigtay hanti kule meeshaasna ka soo jiiday magac iyo sharaf dadkaas Suldaan oo ka qabiil buu ah aniga marka aabahay aan ka dhaxlay alxamdulillah dadka deegaankana waa i doorteen 1996 aabahay nool ayaa xilkaas lagu wareejiyay runtii si fiican baa ugu soo shaqay haddii aan su'aashaada u soo noqdo aniga qabiilka dudble la yiraahdo ayaan suldaan u ahay laakiin haddii qabiilkaas markuu ku doorto waa ina qabaa'ilada kale aad muctarif la tahay la shaqayso wanaag iyo sharaf marka waxaa noqonaysa suldaan Soomaaliyeed suldaan Hawiye suldaan Hiraab hadda waxaan maraa suldaan Irir Soomaale oo dhammaan salaadiintii Hargeysa joogtay ama waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland ay ii saxiixeen inaan ahay suldaanka Irir Soomaale runtii aniga waxaan dhahay maahan waa wax Ilaahay qalbigooda geliyay iyo shaqada aan qabanayo sideedana aniga ma dhaho waxaan halay doorto ama waxaan halay soo xilku waa wax dhib badan waa wax maartay shaqo badan u baahan sideedana qof walba mas'uuliyad uu hay 90% Ilaahay baa siiyay oo uurka hooyadiis markay taa u magacaabay waxa kalena practical ay u baahan tahay sida aniga hadda nin lawyer abukataan ahay shaqadaas muddo waxaan ku soo shaqeynaa ilaa 40 sano ama 35 sano ku soo dhawaad marka waa wax Ilaahay ii qoray midda kale aan ku dhameystiro nin baa waxa la yiri sidoo kale nin shaqo badan oo cid walba xalinayo muslim walba carab ajab waxa la yiri suldaannimada xaggee ku xiranta
war waxaa la yidhi afrikaan waa la fariisanaysa oo qabaa'iladii soomaalida waa la fariisanaysa hadda carabaa joogta wuxuu yidhi aniga suldaannimadeeda xuduudda ay ku agtaa aysan dhaafi karin waxaa weeye qofkii laa ilaaha ila allahu tiraahda ama carab ha ahaato ama afrikaan ha ahaato ama soomaali ha ahaato intaasaan suldaan u ahay laakiin ciddii laa ilaaha ila allaahu aan dhihna deerkaas ka baxdo suldaan umey marka aniga sidaasaan ahay waa tahay suldaan hooley barnaamijka irir samaale ee aada dhowrkii cishe lasoo dhaafayba aada wadeen ee aada somalilan ku tagteen maxaa xilligan kusoo beegay markii somalilan iyo s c iska hor imaadeen horeyna loogu maqli waayo runtii arrintan mudday socotay somalilan wada xiriireynay rag badan oo odayaal oo dhaqana tago la soo celiyey anigu mar walba waxaan dhahayay sideedana wax walba fursaday u baahan tahay hadda anaga marka hadda meeshaan fadhino idaacadda ka hadlayo leef lay fiirsanayo mashaariic badanaa maskaxdayda kusoo dhacayso qof walba kusoo dhacayso mid baad goglay kartaa goglaha aad ka heli kartaa marka mashaariicdu way fara badan yihiin qofka bini aadanka kusoo dhacayo hadba midka aad ka faa'iidaysan karto ayaa looga faa'idaystaa marka anoo intaas waday oo juhdi soo waday ayaa waxaa dhacday in ay istagaaleen ay ka soo horjeesteen dowladdii somalilan shacabkeeda qayb ka mida oo laascaano ah laascaano waa magaalo ka mida somalilan haddana laascaano waa la dhisay wadooyinaa loo dhisay cusbitaalaa loo dhisay iskuulaa loo dhisay aad baa loo hormariyay lacagtaas waxaa ay ka soo gelaysay canshuurta laga qaado gobolada kale somalilan waa $1 oo laascaano laga qaado somalilan qisnadeeda kuma dhicin midda kale maayirka uu soo magacaabay madaxweyne maa inta kale waa dad somalilan u dhashay marka baahidaas waxaa soomaalida waxay dhacay markuu dhib dhaco dhabaqa meel beesha marka dhib baa dhacay dhibkaas ayaan ku soo baxay dowladda somalilan waxaan ka codsaday inay maaragtay ii ogolaato inaan imaado oo ayadii kala hadlo arrimahan mawduucan irir samaalena waa wax lagu midinaya irir samaale waa cududda nato macnaha yaa daaroodahay yaa saan ahay waa isku habarwacdeen marka irir samaale markaan ku dhawaaqay oo odayaasha ula dhawaaqeena meesha waxaa ka baxay wixii isbaysiga daaroodka nin walbana dantuu lahaa uu qabsaday marka arrintaasaa igu dhalisay iina fududaysay waayo jaanis ayay ahayd haddana aad baan iskugu soo dhaweeyey wixii kalena odayaashii shalay fashilmay laakiin dib isku saxay oo sheekh shariif uu saxay oo maanta martiqaad uga helay madaxweynaha somalilan ayaa inta kale dhammaystiraya ama in kaloo dhiman ayaa dhammaystiraysa ilaahay baa og laakiin cid walba oo nabadda iyo horumarka somalilan gacan ka geysanayso anigana waa soo dhaweynayaa somalilan way soo dhaweynaysaa ujeedada anigii somalilan naga dhexaysana waa dantaas in la mideeyo irir samaale in waxa somalilan ay leedahay hadday dowlad tahay hadday calan tahay hadday ciid tahay hadday bar tahay in la caddeeyo sida dowladda jabuuti dowladda soomaaliya dowladda somalilan 3 wadan oo 3 calan isleh oo soomaaliya inay noqdaan cid walba oo soomaaliya maanta caqli leh damiir leh aqoon leh arrintaas way soo dhaweynaysaa waa tahay suldaan hooley waxaa ku celcelisay guddigii gaaray somalilan maalinnimadii shalay ahayd inay fashilmeen yay tahay cidda fashilantay ma wafdigeeda hogaaminaysay somalilan tegey ee natiijo la-aanta kala soo laabtaa fashilmay mise wax garadkan haatan xalinaya xiisadda laascaanood ayaa fashilmay yo horta samiro waa fiican tahay su-aashaada labada dhinacba waa ii weydiisa laakiin way cadda xaaraantuna way caddahay xalaashuna way caddahay habeenku waa cadyahay maalintuna way caddahay nimankan odayaal soomaaliyeed oo dhaqan waa aniga dhaqankooda iyo reeraha u yihiin ma inkirsani laakiin niman ahel oo ah ma ahan waxyaalaha siyaasadda waa dadka dhaqanka qabaa'iladu markay istagaalaan oo heshiiyaan ayuu ugaaska duceeya ugaasku sidiisaba siyaasad ma ahan laakiin nin duceeyo waa markii la heshiiyaa la ugaas duceey sidiisana ugaasku nin meelo badan taga maaha dadka reer miyiga nin ku nool waay suldaankuna waa nin diblomaasi aqoon leh ee dowlado iyo la tacaamulaya qabaa'ilooyin ayagoo isnacmna isjeclaysiinaya aqoontiisana gaarsiinaysa iyo karateeriyada lagu xusho weeye suldaanka marka nimankaasi markii hore garoway ka degeen sababta ay garowe uga degeen waxay ahayd beesha harti ayaa marti qaaday oo dagaalkan sabab u ahaa wayna ku orkacsanayeen ayaguna maysan fahmeen sida UN-ka la soo wareejiyay goojacday meeshaas xoogaa karaama darra uga dhacday dib bay u soo noqdeen dowladdii somalilan way diiday kadibna haddii suldaan hooley lagu marti qaaday meeshii waa la hadlay ajandaha iyo arrimaha somalilan iyo somalilan waxay tahay haddii suldaanka sida loo dhoweeyey iyo sharaftiisa iyo sida loo soo ambabixiyey waa wax wanaagsan taasna waxay fududaysay in dowladdii soomaaliya erge ay u magacaabato waxaa dhacday hadda xasan sheekh maxamed waa madaxweyne ergi u magacaabay haddana nimanka musharaxiinta hanka kale siyaasadda soomaaliya ayaga laftooda garbaduub looma hayo nimanka hadda sheekh shariifaa diray ama bixiyey diyaariyey wuu ku mahadsan yahay cid walba oo somalilan iyo maaragtay laascaano heshiisiinayso
waxa waaye waa lasoo dhaweynaya xataa waxaan dareemi karaa ayagan hadda tegey inaysan howshaan dhamey karin waxaa jira guddigii beelaha hawiye oo ayagana meeshii ka maqan ayaga laftooda waqtigooda la marti qaadaya kaalintooday buuxinayaan beelihii daarooda buuxinaya meeshan waxa waaye laascaano hal taako ay leedahay soomaaliya kuma leh dhulkeeda wuxuu ka tirsan yahay somalilan hadda shacab iyo dowladdiisa isdagaalo waay waa in dowladdii lala fadhiisaa shacabkana runta loo sheego runta waxaa la yidhi ninka raggaa waa ka naxisa masadisho war nin garaad oo dhahaya galab dagaalka qoriga dhig in la yidhahdo garaadka waayo oo garaadkii inay u geeyaan waayo madaxweyne muuse bixi inay 33 garaad ay villada hargeysa geeyaan hor fadhiisiyaan waa madaxweynaha somalilan iyo guddigaas garaadyadana in gacmo geeli jiro hoosaa loo dhaqaayo ay ka baxaan ay wada hadlaan wixii xoogaa markaas ay isku qabtaan ama ku kala duwanaadaan ayaa la xalinaya xalkaasna ayaga iyo aniga iyo intaasoo qof ayaa geli doonta waana arki doontaan waayo waa arrin aada u ballaaran waa arrin maarata qodo dheer waa arrin meelo badan laga fiirinayo waa arrin daarood ku minaqantay inkastoo aan kasoo saaray naata aan u sameeyey oo maanta irisamaale ay tahay marka arrintaasi waxa weeye cid walba oo soomaaliya oo xal ka geysan karta somalilandna way soo dhaweynaysaa anna waan soo dhaweynaya waa tahay suldaan holey waxaad sheegataa inta badan inaad tahay suldaan soomaaliyeed haddana waxaa la arkayay dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey adigoo somalilan dowlad gaara ku sheegaya maxay tahay xilligan sababta kugu qasbaysay in somalilan oo soomaaliya qayb ka ah aad tiraahdo dowladda somalilan iyadoo soomaaliya ilaa iyo hadda ay madax banaani rasmiya siinin runtii samiro waa su-aal aada iyo aada u muhiim ah oo dad badan oo soomaaliyeed ay isweydiinayaan jawaabteedana haddaan siinaya micnaha somalilan waxay xorriyadda qaadatay 1960kii 26 juun meeshii ugu horeysay ee calan soomaaliya uu ka babado waxay ahayd jamhuuriyadda somalilan ama dowladda somalilan waxayna xorriyadda ka qaadatay dowladdii ingiriiska suldaan timo cabdi wuxuu yidhi calankaan sugaynoo sahantiisa ahaynoo seermoodihii laacdiya sagal maanta daroorayow siigadii naga maydhayay sagdhaxaanu ahaynoo kii cadceedda soo saaro xidigaa mid la siiyow seereeyo manasqamow aan siduu yahay ayna ka nasiib ka nasaar hadda curadkii soomaaliya ee dowladnimada soomaaliya waa sidaasee ayadoo qalbi furan oo iris samaalo ah ay fiirinayso ayay waxay ku soo darsatay koonfurta muqdisho oo talyaaniga ay ka qaadatay 1 luulyo sidaasay ku madoobeen aadan caddaa sidaas lagu dhisay iris samaala shaqaynayay kadibna haddii cadow badan oo iris samaalo yeeshay taasi marka waa laga taqalusay ama dhibaata la geliyey taasna waxay keentay dowladdii maxamed siyaad barre iyo tii cabdirashiidba inay iris samaalo dhibaateeyeen sida hadda soomaalida aad og tahay maxamed siyaad barre wuxuu yihi qabiilkii baan aasay maxamed siyaad barre qabiil ma aasin benwi wuxuu aasay iris samaala la aasay iris samaale dowladaa lagu dilo hargeysa diyaaradeeda lagu burburiyey dhibaataa loo gelsiiyey hadda xataa waxaan soo arkay nin duuliyo ah oo ka carooda arrintaasoo diyaaraddii meel kale ku dejiyey way igraameen gabar bay siiyeen guri bay siiyeen mushaar bay siiyeen somalilan marka waxa waaye dad aqoon leh oo sharaf leh oo dowladnimada soomaaliya saldhigga u ahaa hadda hadday waxoodii qaateenna cid u diidi karta ma jirto u-nkay taallaa wadankii xorriyadda ka qaadatay taal annaga midkaan ka qaadanataan shanta soomaaliyana waxaa la yidhaha soomaaliya jabuuti somalilan soomaali galbeed iyo bariga kenya marka hadda labaa naga maqan 3 jamhuuriyadood waa dowlad marka isug wax yar waxaan suldaan u ahayna waxay tahay aniga suldaan soomaaliya aniga iskama dhigina dadkeeda ii doortay qabaa'ilada soomaaliya ii doortay inaan xaq ugu hiliyo waay somalilan aniga maanta khaliday ku jirta gacanta ka qaban maaye cidda qalbeysaan gacanta ka qabana waxaa leeyahay somalilan waa dowlad madax banaan oo somalilan la yidhaahdo oo curadkii soomaaliya ah jabuuti iyo soomaaliya ayadaa xorriyad ka qaatay lugaha u daaya adinkana madaxa halaydiin daayo maskaxda u furanto waa tahay marka suldaan holey hadalkaaga ma wuxuu yahay ujeedkiisu in aad aaminsan tahay in somalilan ay dowlad tahay ma aaminsanayo waa wax jira waaye aaminaad ma waan aaminsana waana wax jira cid walba oo aqoon leh oo dugsiyadii hore dowladdii maxamed siyaad bare iyo kuwii maaragtay aadan cadde iyo kuwii maaragtay ka soo baxay hadda manhajkeena ku taal somalilan 26 juun inay qaadatay golaha ammaankay taallaa qaramada midoobay taala igaday taala jaamacadda carabtay taala wax la qarinayo male waxa laga wada hadlayo waxay tahay isku darshashadii hawada iyo biyaha iyo khayraadka iyo maaragtay macaawanada soomaaliya sidee loo maamulaya deemihii lagu lahay soomaaliya sidee loo maamulaya maane somalilan waa dal calan leh oo towxiidka laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ku qoran tahay waa dal lacag leh waa dal madaxweyneha qof iyo cod ay soo doortaan
waa dal le ciidan u dhartay oo xuduudihiisa ilaalinaya waa dal xuduud leh intii dal laga lahay leeyihiin haddana cilaaqaad lale caalamkii waayo hub lagu waardeemay nabadgelyo waa xabad ma maqlaysid marka waxa waaye soomaalidu waxay ku baaba'day oo meeshan gaarsiiyey xasilnimo waay annaga haddana dad niman la yidhaha reer bahal aan u bixiyey oo boosaaso jooga ayaa waxaan ka shaqeeyey laakiin aniga waxaan u soo istaagay inaa ayagaas xaqa u iftiiniyo ihahdo war adinka dad soomaaliyeed tiini dadka kala dhex baxa aad sida yuhuudda u kala sheekeynaysaan ee caqliga ilaahay in siiyo soomaali ugu shaqeeya si ay horumar loo gaaro suldaan hooley wafdigeeda hogaaminaysay irir soomaaliya la magac baxay maxaa ka hortaagnaa in muuse biixi ay la kulmaan mise halkaas waxay u tageen dalxiis iyo dhaqaale raadis niyo horta waxa weeye annaga muuse biixi ogolaashihiisa wasaaradda arrimaha gudahaan la kulanay muuse biixina bishardi maahan inaan annaga la tagno bil cibaada lagu jiray annagana laftigeena ilmaheyna maaragtay ciid inaan ku ciidno magaalada muqdisho arrimna howlo badan aan noo yaalay hadda dowladdii iyo wakiilkiisiyaan la hadalnay arrimihiaan u gudbinay madaxweynuhuna horey kama soo jawaabi karo oo wasiiradiisa inuu kala tashto golihii baarlamaanka la geeyo aniga waa lay aqoonsaday inaan suldaan irir samaale ah dowladda somalilan way aqoonsatay way aqoonsatay markaan ku leeyahay wasaaraddii arrimaha gudaha la fariistay albaabka guriga albaaba laga gala albaabkii aan ka galna way aqoonsatay wuu nala fariistay wasiirkii dadka ila socda waxa ay u socdaan iyo ujeedadooda xabad xabada u weydiiyey sidaasuu ugu saxiixay magaalo walbana noogu ogolaaday inaan ku tagno haddana markaan niri waa bixinaa tigidhadeena nala siiyey nala soo sagootiyey maxaa loo waayay marka muuqaalo ama sawiro caddeynaya inaad la kulanteen mas-uuliyiinta somalilan runtii niyahu maanta somalilan dowlad baa ka jirta dowladduna igu sawir maahan waxa ay qabanayso waa wax ay u qabanayso darajada iyo wadanka mas-uuliyadda u hayo mas-uuliyadaasna igu sawir maahan madaxweynuhu hadduu $1 bixinayo baanka dhexe ka bixaysaa gudoomiye maraysaa wasaaradda maaliyadda ee maraysaa marka ninku ma u baahno igu sawir iyo waxaana sameeyey muuse biixi maba cid walbuu la kulmayaa cid walbuu wax siinayaa madaxweynaha muuse biixina lacag intuu saan kugu soo qabto kuu sii maayo warqad buu kuu qorayaa wasaaraday maraysaa madaxda soomaaliya ninkaa u tagto saas intuu kusoo qabto sida amiirada oo sacuudiga ku siina waxyaalaha wadankeena corruptionka keena waa tahay suldaan hooley soo lisma dhihi karo waxaad qarinaysaa fashilkii wejigabixi aad kala soo kulanteen mas-uuliyiinta somalilan oo muuse biixi ugu horeeyo adigoo ku marmarsiyoonaya in si qarsoodi aad ula kulanteen madaxda halkaasi ka taraysa horta fashil ilaahay baa ummad fashiliya koleyna anigu waxaan qabtay meediyahay ku jiraan si sharaf leh aa laygu soo dhaweeyey magaalada muqdisho iisug waxyar dowlad iyo shacab xaggana haddee inta gobolon tegay oo gobol walbaan tegay waxaan tegay boorame waxaan tegay dekadii berbere dhexdeedaan ka soo hadlay waxaan tegay maaragtay magaaladii berbera oo ayada dhexdeedaan ka soo hadlay waxaan tegay caynabo oo ugu shisheys oo sool ka mid iyo sool iyo canag sool iyo sanaag ay ka mid tahay marka ninka intaas meel tegay fashil lama dhihi karo laakiin waxaa jira dad canaasiir ahoo baraha bulshada iska joogo aniga hadda baryahan ugu mashquulayo oo aan u sheegayo suldaan hooley cid walba oo taleefonkeyga soo garaacdo sida ay wax u rabtaan u sheegay aniga ani nin baqa maahi nin waxaa laga midda kale dadku waa jiran yihin waa cabursan yihin xataa hadladaas aan la hadlayo ayaa faa'iido u ah marka sidaas waa dad yaro iska canaasiira waaye qofkuna markuu heer gaaro wuxuu yeelanayaa dad cadow ah marka dadkaas cadowgaagan waxaa uga ray kartaa waa laga aamusaa macnaha sidaas waa tahay irir samaale waxaad qeyb ka wada ahaadeen daahir calasow oo boqorka irir samaalaad ku sheegteen daahir calasow waxa uu sheegay dhowaan in gebi ahaanba aadan ahayn suldaanka irir samaale keliya aad tahay xubin ka tirsan irir samaale arrintaas see u aragtaa waa arrin fiican daahir calasow horta waa nin youtuber ah ee dad badana dhib u geystay soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda aan laga wada hadlin runtiina qofku hadduu wax sheegto aniga maba taabtaba daahir calasow boqorna ma ahan boqorna ma noqon karo boqor ninka markuu noqonayana waa in beesha sacad ay soo doorataa ay noo keenaan oo yidhaha ninkan boqor waay micnaha nin asaga hawshaas rabay waay rabitaankiisuu ka hadlay dad asaga markaas ku agadhow oo saaxiib la-aana way dhahayeen marka asaga nin xil haya ma ahan oo hadda xilna qof uma magacaabi karo xilna qofka ma qaadi karo laakiin inta boqor laga dooranayo oo iris samaale u qalmo kriteeriyadiisa waa soo saara asbuucadda baa soo saara aqoontiisa da-diisa waa inuu 2 baasabor leeyahay waa in oo howluhu soo qabta caddeyn uu ka keena inuu corruption inuusan qof u gafin inaa maxkamad lagu maaragtay lagu dacweysa 2 baasabor maxay sabab u yihiin iisug wax yar iisug aan ku dhameeyey marka daahir calasow sidiisaba nin waxna magacaabi kara nina wax magacaabi kara waxna diidi kara maahane nin mulucoo maskiin ahoo door bir ku nool waay
asagaasaa wuxuu u baahan yahay in la difaaco soomaaliya oo dhan eed ka galay xataa hargeyso hadduu boqor yahay ama boqortinimo rabo intuu tago war boqorkii iris somaalaan rabaa halaysiyo ma dhihi karo sida suldaan hooley oo kaleeto marka waa nin iska hadlay intaasna inaan u dhaafa ma rabo laakiin beeshiisa oo sacada uu ka dhashay reer qurdhaale ayaa mas-uulogaa wixii dhaqana ayagaana ka wada hadlaynaa boqorka iris somaalana nin walba iskama noqon kare si barax tiran oo bannaan oo clear ah ayaan rabaa inaan u shaaciyo 12 nin guddi doorta oo baarlamaan oo 120 la dhiso baarlamaankaasna uu doorto ninkaas boqorka oo la yaqaano beesha sacadna hadda waxaa priority aan siinaynaa 7 maalmood haddii musharax igu soo gudbin weyso iris somaalo dhan u yaala markaas haddaan rabana anaa awood u leho madaxweyne direedan ka qabanaya curadkii ah waa tahay ma aaminsantaa adigina tahay suldaanka iris somaali hadda iris somaali aniga balba suldaan soomaaliyeedaan ahaa suldaan hawiyaan ahaa suldaan iraabaan ahaa suldaan muxuu ahaa maxamed iraabaan ahaa iris somaalina hadda markaan tagay ayagaa ii magacaabo dhameeyey hooshii soomaali fahmin howshaasna waan soo qabtay waana kusoo guulaystay daahir calasowna waxaa la rabaa asaga laftigiisa shuruudihii uu ku noqon lahaa maaragtay boqor meesha ma yaal hununa hadal maaha bariisina wax maan bulshada markaa hogaaminayso waa in ninay ku qanacsan yihiin loo doorta anigu sidee suldaan cigal hooley la yidhahdaa runta kama boqo cidna aniga uma aaba yeelo laakiin ciddii wanaagsan ayaa la dooranaya 120 qofood oo iris somaali oo lasoo xulay oo qabiil walba dadkii percentageka ay ku yeesheen ay soo xuleen oo nin walba la nidaamiyey ayaa si daahfuran waxay u dooranayaan 11 nin oo u sharaxan beelaha kala duwan ee iris somaali si aan loo dhihin reer hebelaa qaata iyo ama qof aan mudnayn sida daahir calisow waa suldaan uu noo doorto inaan la dhihin aan saas u daafuraan marka waxa weeye daahirna waxaa laga rabaa wuxuu yidhi dhurwaayo haddii hooyada luqundheerta looma joogay haddaa suldaan iris somaali noqon karto xataa mid saacadaan noqon karini imow aniga hadda kuma diidani laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa inaan hawshaas dhisaayo xaqna aad u leedahay inaad ka soo qayb gasho haddii iris somaali oo ku doorteen hadda boqorkii aad tahay xilkaas waa kugu wareejinaya ninka hawshaas qabanayo sidiisa boqor ugaas waxaa dhisa suldaana dhisa marka suldaankii iris somaali waxaas dhisaya ana ninkuna shaqadiisa hadduusan aqoon oo youtuberya waa iska raftaada shalay shaquusa lehan u galay dadkii yaa la yaab falcelin u sameeyey aniga marka intaas u dhaafi maayo waa dadka aan suldaanka u ahay raaligelina aniga ka qaadan maayo aniga waxaan ku baxaynaa dhaladaas cad ayaa lagu kala baxaya ninka boqorka u tartamaya meh soomaali faham 11 nin oo boqorka iris somaali u tartamaya oo 120 qofood ay doortaan oo magaalada hargeysa ama jabuuti lagu dooranayo ama magaalada la yidhaha diridhabe waa 3 magaalo ee degan yihiin magaalada muqdisho xagga iga soo dhig anaa kasoo jeeda ma rabo in oo mudmadow iyo suldaankii xagga la yidhaahdo waa magaalada la yidhaha diridhabe magaalada la yidhaha borame magaalada la yidhaahdo jabuuti ayaa lagu dooranaya marka daahirow haddii hooyadaa luqundheer tahay oo adiga aad noqon karto maaragtay boqorkii iris somaali 120kaas qofood inay ku doortaan muhiima marka wuxuu yidhi wiilka odayga u eg habartana ku erla odaygana ku uursan marka anigana waa ku erla ana iris somaalina waa ku ursamaana waayo hadda su-aalo badan ay ahay war daahir yabro daahir calisow suldaan maxaa ku agtaagay war aniga calinkii somalilan inaan magaalada muqdisho ka muujiyo oo war saxaafadeedkii sheego maadaama aan aniga afhayeen lahayn taasaa igu qasabtay aniga daahir calisow niman sinamay ilaahayna nama simin beel ahaan uma simin darajo uma simin ilaahayaa 2 nin oo shaksiya oo caalamkan ku wada nool oo hiraaba ah suldaankiisa aan ahay asagana youtuberkiisii way marka shaqadiisuu qabsanayaa hadduu xilkaas rabana 11 ninuu la tartamaya wax daafuran waay marka sidaas weye daahirna saasaan dhihi lahaa waa tahay daahir calisow keliya waxaad ku tilmaamaysa oad kusoo koobaysaa inuu yahay youtuber aan go-aan ka gaari karin iris somaali waa run waaye waxa waaye warka waxaa la yidhi ninka ragga runta waa kana xisaab mise disho daahir calisow shaqo uu qabtay shaqooyin badan wuu qabtay oo hadda hoos u gelin oo aan waayo suldaankiisa ay mugsoon tahay hadda asaga waa isdhaawacay dhaawac culusuu isku geeyey maadaama uu suldaankiisii fara saaray asagaa isdhaawacay inta kalena asagaan u dayno asagaa isdhamaystiraayo shaqo la yaqaan oo lagu bartay hadday xun tahay hadday fiican tahay daahir calisow waa youtuber wuxuu ku dhibaateeyey beesha sacad wuxuu ku dhibaateeyey hawiye wuxuu ku dhibaateeyey shirkado waaweyn oo sida hormuud oo kaleeta wuxuu ku dhibaateeyey beesha daarood waa nin aan beesha daarood aniga hadda fiiri nacbaan uma qabo daarood siyaasiyiinta daaroodka hadda hawiye daarood iyo digle mirifle dhaqan heshiisa u yihiin ganacsiga heshiisa ku yihin nimankan xoogaa maxamuud saleymaan oo boodboodaya wax ismooda ayaan rabaa inaan soomaali ka qabto mooyaane daarood kale col qabo male asaga nin cuqdad ka buuxda waa nin cuqdad ka buuxdana hadda annaga u dooran mayno inuu hogaamiye noqdo
marka youtuberkiisii xataa waxaa laga rabaa daahir calisow intuu yimid oo maaragtay shaashad yimid ma dhihin aniga shirkadaas hormuud dhib badanaa u geystay hay cafiyaan ma dhihin gudoomiyii beesha habargidir gafweyn u geystay ma dhihin war aniga hay cafiyo ninkaas dembi ogal raganimaday ka mid tahay sooma faham aniga hadda suldaankiisa 10 jeer xalay shalay soo wax raali gelina kaa qaadan maayaan arkowde anaana suldaana anaana israali geliye niyo shaashadaas ima wadaad boqor noqonayso yaa 11 ina kula tartamayso 120 ina maartay ku dooranayso laakiin aniga inaan hoos intaa kula shiro oon kugu soo magacaabo maartay boqor man dhacayso waayo sharaf xumadeeda sharafteeda ayay dhib u geysanaysaa reerkiisa hadda maalin walba soo war suldaan hortaar calisoo taqaan maas anaga nooga dhigaysaa oo erisamaal uga dhigaysaa war hadda niyo ninka asagaa isfashili doonay oo rubada isku dhufo doono nabar isgaarsiin doono isdhaawici doonay usug hadda shalay isdhaawac suldaanka wax ma magacaabi karo haniya suldaanan ah berito waxaan magacaabaya ajandii wax lagu dooranaya soo saaraya shaqada ninkii u talwa baarlamaankan dhisaya sida qabiil loogu taliyaan aqan sida qabiil wax loogu soo saarana sida qabiil haduu wax way loo qanciyaan aqan ani qabiil ma caayo qof ma caayo qofka ee caaysa iyo qofka ee amaanta sameeyo waa maasinyan labadaba cid walba aniga hadda telefoonka soo wacdo waa ka qabana waxay u weydiisaan ugu su'aale hadda suldaan cigaleeya waxa aniga qaban mayso marka sidaas waay marka ninkaas walaalkay waxaan leeyahay tartankaas ku sugay isu soo diyaari shaashada imow ana shaqadeedan qabsana ana shaqadaada qabsanaysaa wixii intaas ka badana dhaawacaaga adile dhamaystiraya maahan aan intaas hadda kaaga fogaan ma jirtaa inaan lacag isku qabateen daahir wax lacaga daahir aan isku qabana male aniga daahirna weligay xataa lacag isku qaban mayno sababtoo aan nin lacag raadinaya maaha anigu nin iri samaalo oo midaysan oo beri wax noqdo oo caalamka intuu jiro wax ka noqda raadinayaan ahay dowladda Soomaaliland iyo shacabkeedana waa erkeen qof $1 aan weydiinaya ma jirto aniguna waxaan aaminsanahay irsaaqdeeda ilaahay inuu qoray hadda aniga heerkan waxaan ku soo gaaray xataa dadka wararka iga duuba ay wax horumar ku gaari waayeen lacagna kuma bixiyo hay caayin halay amaanana lacag kuma bixiyo aniga wax qabadkeyga wax cad oo runta aan laga gaagaabanayo anigu markaan dhib arkana ilaahay baan ilaahu waxaana dhibaya ilaahu iga qabaa iraada haddaan wax doonayana ilaahu waxaanan doonayaan aniga ilaahay ba online la inaan qof weydiiyo Somaliland waa dad masaakiin ayadiyaaba macaawino u baahan dowladda Soomaaliya ayada macaawino u baahan ninka taajirka asaga maalin walba baahno ka baahi badan ninba ninku ka taajirsan waa ka baahi badan anu baahideeda marka waa mida ilaahay uu daboolo anigii inta ilaahay uu isaaqo awlaad ama xoolo ah anu saakadaan wax u baahnay 6 saax in mantiga ilaahay waxa u baahan ilaahay waa isina haddaan waayna ilaahay ima qorin marka saasaan aaminsanahay marka anigii daahir dad walaalana xoolana isku qabsameen maanta anigii daahir waxa fiicnaan inta lacag in la soo dhigo qaadaan leeyahay sida ninkan hunguri badan waa la iska hormariya asaga isdilay qofka waayo hadda waxyaalaha daahir uu isku dilayo oo suldaankii uu uga daba tagay asagoo waxba ahayn oo leeyahay suldaanka anaa dirsaday waa hunguri waay waxa meeshaas dhigay ama uu qof u caynay ama shakhsiyaad u caynay culimo caay xataa mugsanta culimadii ugu waaweyn marka ninkaas marka ilaahay maartay ha hanuuniyo ilaahayna tawfiiqda ha waafajiyo anigu waa u duceynaya wax kale oo iraada ma leh waa tahay suldaan hooley dhowr mar waxa ku celelisay in dhaqaale raadis aadan ahayn waxaa la arkaya codad aad ku dalbanayso dhaqaale isla markaana aad ku sheegayso inaad u baahan tahay in lagu soo kaabo oo xaalado dhaqaale yari ay ku soo wajahday marka maxaad ku diidaysaa in dhaqaale ay isku qabateen daahir warniyo aniga dhaqaale codkaagii dambe xitaa waxaa ku jira in Somaliland lacag 10 kun gaaraysa ka soo heshay warniyo fiiri waxa waaye dadkani Soomaalida ilaahay baa janno Somaliland lacag 10 kun oo gaaraysa ma ka soo heshay ani Somaliland waxay isiisanay cid aan u sheegayeen male aniga ilaahay waa adiga lafteeda waxba raadinayso waxba iga helmaysid Somaliland waxa weeye aniga waxay isiisay anay isiisay hadaysan isiin soo hadda daahir cali soo waxa isku qabateen soo taama war aniga daahir cali soo isku irsaaqna mani isku shaqana mani soo aniga 12 qofooda ila socdo qof walba waa la sooriyay qof walbana waxa waay sida loo sooriyay Somaliland way taqaan dad ilbaxa waay Soomaali faham ninka la yiraahdo daahir cali soo haduu tagana waa la sooriyayna marka aniga daahir cali soo waxna isku ma keen darsan isku akoon manihin isku shaqo manihin marka sidaasaan wax isku qabsan marka dadaa waxay ka raadinayaan fuyus hadda ka raadiyeen fuyuskooda anaga u diidimayno laakiin aniga daar calisow lacag isku qabsamayno lacagtii Soomaaliland ka soo qaaday soo lagama yaabo in isku qabsateen marka daar war hayda Soomaaliland had lacagta aan ka soo qaaday haday isiiso adiga wax ma ka siiya warso hadda 11 ku jira suldaan waxaan ka rabaa idoo ku siina haday ga dhamaatoon ku siina suldaan waxaan ka rabaa idhe waan ku siina dad Soomaaliyeed buu ansi aniga nin gacan furana waxa la weydiisto daar calisow aniga waxna iskuma qabsan haduu yiraahdo suldaan waxaan ka rabaa waa siina wax laan ma dhigayo laakiin aniga dad wax iskuma qabsan sideedaba aniga heerkan waxaan ku gaaray oo sharaftan ku helay oo darajadan ku helay isaaq waxay ila war ninkan gaabano suldaan hoolay intuu banaanka joogo
intiisa kale oo hoos u jira war nin jirad adag wey maxaa iga dhigay lacag dad buu ku qabsadaba lacag waxay taa male waa koostaataad cunaysaa dhayla cune baasta cune saxara iyo qashina u noqonaysaa waa wax daciifa maanta aniga haddaan dhinto hantideeda layla duguma camalkayga layla duga iyo waxaan sadaqayso war aniga qofkii wax raba Soomaaliland iska daay meel hebel wax ka soo war suldaano waxaan ka rabaa waa siina aniga haddaan hayna ma hayaan leh aniga hadday fiiri kaligaan socda dal lama socdo ninku markuu runlow yaa kaligiisu socda dad saaxiibo badan ma leh qofkii wax weydiisa waa hayaa ma hayo laakiin ninka markuu beelooya meeshuu fariista waa la daba ordaa sidii shimbiri biri iyo masaada iyo ma hayo isu marka waxa waayaan lagu mashquulin suldaan hooley nin ilaahay wato oo ilaahay garab taagan yahay wixii aan rabana ilaahay baan weydiistaa wixii dhawaana ilaahu dadkan iga celiyaan dhaha haddaan u adkayso waa bini aadanahay laakiin aniga waxa laysiiyo waa wax ilaahay ii qoray waxa ilaahay ii qorana waxna waa ka saqadaqastan waxna waa cuna ilaahayna hadda America haddaan tago ilaahay irsaaqadeeda America ugu soo dira haddaan Somaliland joogana Somaliland ugu soo dira laakiin aniga magacayga ku qoranta suldaan maxamed cigal irsaaqada maanta aan cunay daahir cali soonatiisa ugu qoranta samiro haddii weydiinayana oo leefka ugu jirana magaciisa ugu qoranta markii lagu mashquulo ma suldaano hebel lacag isku qabsateen hebel yaa isku magacba mani isku akoon manihin ilaahay nin walba wixii soo ma ilaahay baa wax isku qaldaya markii waa maya waa tahay suldaan hooley waxaa la arkayay cod baraha bulshada wareegayo ood ku sheegayso in ciidamo lamida kuwa NATO inaad dhisayso oo irir Soomaaliyeed u dhisayso yay tahay cidda ciidamadaasi aad ku baqdin gelinayso niyo waxa weeye horta markii irir Soomaaliya la sameeyay waa qowmiyad 7 wadan degan sida Soomaaliya Djibouti Kenya Ethiopia Chad iyo Burundi intana waa tagana waa in 7daas dawladood min 10,000 ama min 5,000 ama min 8,000 waxay awoodaan inay noo fangarayaan noo tababaro ciidamo cirka ciidamo lugta iyo ciidamo dabaabada ciidamo sirdoon mushaarkoodana ayaga bixinayo waxaana dejinaa magaalada Galdogob iyo xiraale inta u dhaxeeyo ayaan rabaa xarun inaan uga dhigo waxay soo dadejinaysaa marka nabadgelyada Afrika dhaqaalaha siyaasadda waa dekada Garaacad hadii la dhiso ciidan bay u baahan tahay ilaaliya waxay u baahan tahay nabadgelyo hantidaas waxa soo dhan dad ajnabiya Zambia iyo Malawi iyo Uganda ka yimaada dekada Garaacad iyo Hobyo ka ganacsan doona marka waa in la helaa ciidamadii difaaciga ciidamadan waa ciidamo ay ogol yihiin caalamka sida Ethiopia waa ciidamo ay ogol yihiin ayada qayb ka tahay Kenya ciidamo ay qayb ka tahay Soomaaliya ciidamo ay qayb ka tahay Somaliland ciidamo ay qayb ka tahay Burundi iyo Chad taliyada general nidaam leh system leh marka mushaarkoodana dawladaha bixinaya laakiin ciidan aniga kula dagaalaya ma ahane xoogaa nimankan walaalahay daaroodka ku waashay daarood sidiisaba waa qabiil yar oo la Soomaaliyeeyay doombira dir irir Soomaaliya dhash asaga laftiisa irir Soomaaliya boqolkiiba 50 uu ku leeyahay hooyadiisa ah xoogaa caasinimo iyo waxyaalaha taabanaya siyaasiyiinta laakiin dadka kale way ogol yihiin ayaga laftooda cid u diidaysa male inay ka mid noqdaan waxa weeye ayaga ayay badbaadinaysaa maanta kadib laascaano inuu dagaal ka dhacay badbaadinaysaa oo ciidamadaas kala galaya shaqo ka qabanaya boosaaso dhibaatada ay wado ama hadda iyaan hore ina diyaaniyo daniya isdagaalay waxaasoo dhan maartay aan awood u yeelan doonaa dowladda maamul goboleedka oo Puntland oo mar walba dowladda dhexe isku taagto haddii ay maartay gooni isku taagto ama ay ka hortimaado dowladda go'aanan ka qaadanaynaa oo maartay mandate aan u haysanaa inaan geli karno Puntland maartay waxyaalahaas oo dhan ay marka fududeynaysaa adduunkana iyo Soomaaliya caalamka waa ogyahay kan karada Soomaaliya inay tahay Puntland nimanka la yiraahdo Cismaan Maxamuud khaasatan dani taas marka waxa way suldaanku aragtidaas dheer waa aniga ma jeerteen oo dhan kuma ihi maartay col waa dadaan aad u jeclahay laakiin kan karadaas aan rabaa inaan ka jaro waana ka jaray alxamdulillah rabbil caalamiin rasuul wasaarihi Soomaaliyana maanta beesha daarood ugu awoodo weyn ilaahay baa awood leh uguna fiican xagga qalbiga oo 70 sano laga ilaalinayo ilaahay sabab uga dhigay xasan ilaahay waafajiyay nin wanaagsan oo sharaf leh xamsi cabdi barre noo soo xuleen runtii taas waxa quuri waayay ninka la yiraahdo dani oo israfinayo mooshinkiisana hadda saas ku baaba'ay marka aniga waxaan rabaa dani horta waqtigiisa waa dhamaaday Puntland aan rabaa inay iska qabtaan laakiin maanta kadib maamul goboleedkii dawladda u hogaansami waay suldaanka iyo ciidankiisu waxay qabanayaan dalkaas mandeedan u haysana Amerikaanka ugu caawinaya European Union African caawinaya igad baan caawinaysa waxa waa wadankeena wuxuu ka haray 30 sano yaa daarooday anagana dhibtay waxa waa nin daarooda markuu yimaado dagaal una gelina kiyawiye markuu yimaado lagu yaal qabsana
marka si aysan u dhicin oo dowladda xasan sheekh maxamuud maanta aan ka bilowno oo si fiican u shaqayso oo meel fiican beri la gaarsiiyo oo nin walba tuuladiisa intuu dhismo ka soo bilaabo oo laamiga maamul goboleedka ku soo daro maamul goboleedka waddo laga soo qaado xamar la keeno dadkan xamar ma deeqo xamar dad baa iskale ilaahay siiyey soomaad faham oo haddana aan ku colaadinin reer mataan nimanka la yidhaahdo iyo cabdulla galmaax iyo waxaa iskale niman la yidhaahdo iyo celi soomaad faham abgaalaa la leh hawiyaa la leh hiraabaa la leh laakiin waxaa la rabaa magaalo madaxdii ayadoo ah haddana nin walba tuuladiisa inuu soo dhisto magaalo madaxa dadka waa loo soo shaqo tagaa waa loo soo dalxiis tagaa maa nin walba dowladdii inuu wax ka helo sax maaha wata ujeedka hadalkaaga marka ma wuxuu yahay ciidamada irir samaraad sheegtay inaad u dhisayso in puntland kula dagaalanto puntland haddaanan la dagaalamin soomaaliya ma hagaagayso been in la buniyo maan mugsoonta aniga puntland waa la dagaalsanahay waxaan kula dagaalsana aniga maahane tiim ma aan hayaa oo xataa daarood ah hadda fiiri nimanka la yidhaha ciise maxamuud way eryeen waxay geeyeen garowe caasimad ka dhista meeshaas cansuurta ka dhaadsada wax ay ka yihiin male kan jooga aamusa laleeyi jiraa baryaha waad aragtay nimankii cumar maxamuud ahay oo cududda maxamuud saleebaan ahay dekadaas garaacada iska dhisteen hawiye gacnaha u taagteen waa loo maalgeliyey halkaasi si eriya dekadoodii inay dhistaan ganacsigaada marka ninkan qadiidada weyn oo laleeyahay deni iyo waxa raacsanaan rabaa inaan ka qabto sideedana ummadda walba oo qof ka dhiba ilaahay dad buu usoo diray ani ninkaasaa ilaahay usoo diray ninkaasaan rabaa inaan ka safeeyo meeshaas puntlandna waxay u baahan tahay laftigeedii ayadiyaa la haystaa maskaxda laga haystaa war saddexdii nin oo cismaan maxamuud iyo cumar maxamuud iyo ciise maxamuud ayagiyaa laba diray halaa jooga halkiyaa waxaa isku haystaa boqorkii wuxuu leeyahy anaa waxaa ahay bah direed war baxuu leeyahy waryaa anigana bah dhul baantaa waxaasoo dhan aan rabnaa inaan ka taqalusno aan keeno dad nadiifa oo puntland oo la shaqeeya dowladda dhexe xataa waxa waaye meel walba maamul goboleed walba anaga saxayna haddii lahayd waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad dirayso suldaan hooley fariinta maanta aan u diraya ummadda soomaaliyeed waxa waaye meel walba ay joogto midnimada ha ka shaqeeyo beeshiisa islaamnimo iyo ehelnimo ha ugu shaqeeyo ilaahay ma diidayo in qabiilka qabyaalada la diidaa qabiilka in wax wanaagsan la isku mideeyo ma la diidayo in diinta lagu midoobo in islaamnimada lagu midoobo dadka dariskaa la nabadgeliyo xaqooda la ilaaliyo qayimka iyo sharafta irir samaale in la ilaaliyo in maaragtay sharta irir samaale laga ilaaliyo beesha daarood annaga digil iyo mirifle waxa weeye sab iyo samaalo waay sagaalka samaale waxaa la dhashay madimaa sabaa la dhashay sab yaa waay digil iyo mirifle waay curadkii waay marka inay midoobaan sab iyo samaale waa nimanka iskale magaca soomaaliya walaalkeen daarood waa nin la soomaaliyeeyey oo doombiro direeda dhashay waa nin caraba oo jabarti ismaaciila oo maaragtay wadankan yemani ah meeshu ku aasan yahay meesha degaan iyo dadkay kasoo farcmayna la yaqaana haddana runta hadday tagto waxay tegaysaa inay carab noqdaan oo caalamkana kala dhex galo hadda sida somalilan iyo laiskugu dhegan yahay inaan shuruuc ku kala baxnay tahay waa dad la soomaaliyey beesha jareer weyne waa dad daris nala ah ehel nala ah walaal nala ah ogow beesha jareer weyne waxay degtaa dhulka irir samaale hal taako oo daarood ismaaciil leeyahay ama uu degan yahay dhulba male hal meel oo daarood ismaaciil leeyahay nin jareer weynaha kuma noolaa karo waa jareer weynuhu waa dad shaqo badan xoog badan caqligooda iyo kartidooda ku soo saarta maaragtay noloshooda marka ma geli karaan dood iyo fadhi ku durir iyo caayo marka nimankan niman caay badan oo dhib badan waa laakiin hawiyuhu waxa waaye beerahooda ma labaan shaqadooda ma labaan hadda waxa guri arkayso oo qurux badan waxaa dhisaya beesha jareer weyne ama injineer ama civil engineer ama koronto yaqaan ama biyogeliye ama gaadiidka waxa weye marka sidaas waaye fariintaasaa marka usoo diraa qof walba oo soomaali ah in afkeeda iyo gacanteeda laga fakado anigu dadka idhahayo war suldaano qabiilkan war qabiilkeyga aniga waa midayna daaroodan aan maarata ku badbaadina danta daarood waxay ku jirta irir samaaliya ku jirta haddii irir samaaliya uu midoobo daarood xaqiisa waa hela laakiin hadda boodboodkan iyo hadba meel ku cararkan iyo sida yuhuudda inaa u shaqayso oo mar habargidir iyo abgaal iska horkeento mar shiiqaal iyo juble iska horkeento mar mursado iyo habargidir iska horkeento mar abgaal iska horkeento mar dir aad iska waxaa sax maahan waxaasna adiga dan kuuma ahan sharaftaadina way ku dhacday dadkiina way fahmeen warniyo xaqaa loogu leedahay waa lagu siinaa haddaa taa beesha daarood xaqaa leedahay soomaali ku leedahay doombiro direedaa ku dhashay cid ku nacab male abtigaa waa hooyadaa caana lahayn waa lagu siinaa hooaa lagu leeyahy soomaaliya taake ciddi intaasna cid ku ogolaanaysa ma jirto suldaan hooleyaa jooga hadduu dhintana ragaan u tababara meeshaan 1 milyan oo sana hadduu adduunka jiro howshaas way socone annaguna wixii xaq aan u leynaan qaadanaynaa haddaan isku badanna annagaa isku badan annaga iyo nimanka la yidhaahdo sab iyo samaali waa digal iyo mirifle iyo sagaalka samaali annagaa isla dhalana jareer weynana haddana xaqiisu leeyahay taas marka waxaa lagu gaari karaa
jiritaankii iyo dowladnimadii soomaaliya waxaan kaloo rabaa meeshaan inaan uga faa'iidaysto dowladda uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka yahay waa taageersannaha annaga beelaha iris samaal haddaana waa taageersannaha haddaan wax ka weyna haddaan wax ka helna xasan waa taageersannaha hadduu nala kulmo iyo hadduusan nala kulmay xasan waa taageersannaha ciddii qabiil ku soo weerarto dhagaan ku dhufanayna annaga xasan xataa weydiimayna cid aan uga aaba yeelayna male qabiilkii isku taaga dowladda 5 gacmood iyo calaa lagu qabanaya laakiin qabiilku wuxuu xaq u leeyahay xildhibaanadiisa inuu wato oo madaxweynaha u tago uu la kulmo xaq uu leeyahay ma dhex galayno haddii dowladdiisa asagoo xildhibaankii la joogo uu dhaliilana haddii xildhibaankiisaba dhex fadhiyo asagay la joogtaa laakiin qabiil intuu shiro goosto wado ama suug dhigto waxaan ku samaynaynaa 200 sano taariikh laga sheekeeyo waana xasan maa dowlad walba oo imaanaysa waay waayo dowladnimada wax la wada leeyahay waa in la ilaashado waay madaxweynaha haddaad rabto haddaad dhaliil ka qabto haddaad tabasho ka qabto aduu madaxweyne ku yahay xildhibaankii doortay u daba tag la fariiso madaxweynaha talaado walba laakiin aniga wadan xirana iyo saana yeela marraba ma yeelino xataa waxaan diidaynaa wax la yidhaha mudaaharaad ciddii doonto nin walba ee tabasho qaba xildhibaankiisa ha raadsado madaxweynaha u tago haddaa adiga xildhibaankaad u tegi kari halkaaga joog aniga iimo xataa aniga iimo anaa kuu geynaya anaa wax kaaga qabanaya marka warkayga saasaan kusoo gabagaban lahaa waa tahay suldaan hooley waa kaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad nooga ajiibtay kasoo qaybgalka barnaamijka diiradda ka baxa SB TV guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii diiradda waraysiyadeed ka daawanayseen muuqaalbaahiyaha SB TV tan iyo kulanti dambe waa bahda SB TV oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo ammaano alla